الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على الحبيب نبي هلا قصليو قلة هي بلاتفورم هي مضل هذه اللي سكوي ماذا وأن إلهي لو حسن نبي جنا صلى الله عليه وسلم على قصلين سيد النبي جنا عليه الصلاة والسلام شاقي براكو ما يلاتي وحترتونا مركا وجهرنا حني بكبر رجينا إن هذه إلهي حسطان نبي جنا قصلدان intaag sokow waxa weeyaan warkoo kooban oo kambaruuro komba ku jira waxaan halkan u fadhinaa qorfaynta buug kamida buugaagta horumarinta shakhsiyadda ama horumarinta aadamaha buugan magaciisa waxa la yiraahdaa Think and Grow Rich fakar oo hodan noqo waa mowduuca caawimiska inoo saaran iyo buugga aynu sida weyn u qorfayn doono kulley laga yaabaa isagoo haadhay inaad haysaan maktabadda inoo yaala soo ma buuggan si kooban waa buuggii anigu maxamed ciga ahaan aan akhriska ku bilaabay weeyaan wax akhris la yiraahdo buugga iga horreeyay ma jirin buuggan akhrintiisa waxaan u akhriska buugaagta iyo majaalka waxaan toos u soo gudagalay 2019 bishii afraad 2019 bishii afraad inaan soo galo oo majaalka aan xiisa badan u qaado oo aan waxa weeyaan noqdo akhrista wanaagsan waxa sabab u ahaa buuggan waana sababta markii ay teamka maktabadu ila soo hadleen buugaag dhowr ay kala dooransiiyeen kan baan markaa doortay buuggan markaa waa buuggii markaa aan iibsaday weeyaan maktabadahan tagay isagoo Soomaaliyan arkay deeto markaa waxaan doortay in aanan Soomaali ku akhriin sababtoo ah Soomaaligeena kelmadaha wax lagu qoraa kelmadaha inta badan hodana ma aha buug la soo minguuriyay oo Soomaali laga dhigo waxa weeyaan originally waxa weeyaan English ahaana qofkii buugan qoray mentality iyo aragtida uu ku qoray inaad af Soomaali ahaan u heshaan oo adagtay marka waxa khasab noqotay inaan online kula soo dago kadibna aan mid kamid ah maktabadaha Hargeysa u geeyo deetana la daabaco marka haarka $12 baa iga baxay waana mid kamid ah buugaagta aan ugu jecelahay akhrintooda ku dhawaad buuga waxaan akhriyay 7 jeer 7 times waxaan rajeynayaa waxaan u maleynayaa inaan qaybsanahay sida Faatixada marka waan idinku shubayaa caawa adiga la wareegaysaan waayahay buuggan waxa qoray nin magaciisa la yiraahdo Napoleon Hill ayaa qoray daabacadiisii koowaad waxa la soo saaray 1937 buuggan la qoro waxa sabab u ahaa nin maalqabeena oo hantiila ahaa oo Mareykan oo magaciisa la oran jiray Andrew Carnegie ninkan dhalinyarada ay markaa ninkan Napoleon Hill imka uu reer waa u dhintay wuxuu dhintay 60s meelaha wuxuu dhintay waan filayaa 61 mise 63 meelahaas isagoo aad u weyn oo meelaha 87 buu ku dhintay filayaa qoraaga buugu markaa buuga uu qorayay da'diisu waxay ahayd 26 jir waa 26 years age 26 jir buu ahaa wuxuu ahaa wariye saxaafadu ka shaqeyn jiray maalmaha kamida markaa saxaafadii uu ka shaqeyn jiray baa waxay damacday inay waraysi ka qaado ninkii ugu hantida badnaa ee ugu taajirsanaa wadanka Mareykanka oo la oran jiray Andrew Carnegie deeto waraysigii markii uu dhamaaday baa ninkii waraysiga laga qaadayay maalqabeenka ahaa oo ahaa dad yoga aan nidaamyada waxbarasho soo marin ee nolosha sida wax weeyaan kacaakufka ku gaaray horumarka baa wuxuu arkay energy-ga iyo tamarta ninkan dhalinyarada ku jirta deetana wuxuu u tilmaamay gaar buu ugu yeeray gurigiisa ku casuumay deetana wax weyn bay ka yaraa ninkii dhalinyarada la noqotay in ninkii dunida ugu maalqabeensanaaba marka waxa weeyaan darajada billionaires-ka ninkii ugu horeeyay gaaray waa ninkaasi magaalada wadanka Mareykanka waxa markaa uu qaadan waa la noqotay Napoleon Hill in gurigiisa uu ku casuumo ninkii ugu hantida badnaa wadanka Mareykanka deeto wuxuu ku yiri xogaan sababtii iyo sheekadii buugga baan rabaa in horta aan idin sheego ujeedada iyo fariimaha buuggu sheegayo oo dirayo halkan bay noogu xuseeyeen saa waxa dhacday gurigii markii uu tagay baa wuxuu ku yiri niyo waxaan doonayaa ninkaagan dhalinyarada ahow shaqadan hadda haysa ka muhiimsan ma rabaa inaan ku diro diyaar mooti sheegin markaa shaqadu waxay tahay halkan 10 baa ku jira xagga damaana ka sheegi doona wuxuu ku yiri shaqadan aad hadda haysa saxaafadda iyo wareennimada aad uga muhiimsan baan rabaa inaan ku diro are you ready for that
bal maxaad samayn lahayd adigoo shaqaysanaya shaqo fiican gacanta ku haya oo noloshaadu isa saaran tahay haddii offer iyo dalab lagu soo bandhigo aanad garanaynin waxa aad ka dheefayso oo inaad aqbashay iyo inaad diiddo labaduba ay wax weyn adiga kugu xidhan tahay natiijadana aanad hubinin qofka kugula talinaya talada ku siinayana aanu maalgelin ku siinayna tala kaliya ku siinayo cidda talada ku siinaysaana ay tahay cid hantiila oo waxa Ilaahay siiyay kulli go'aan baad qaadan lahayd adigu ninkii dhalinyarada ahaa within 39 seconds so 29 seconds buuga ku xusan mid kamid ah qodobada buuga ayaa qodobkan waliba aad uga falanqeynaya kulli Ilyas baa akhriyay filayay qodobka go'aanka la yiraahdo decision making ka muddo 29 daqiiqo gudaheed 29 second gudaheed buu wuxuu kaga jawaabay su'aashii ahayd talada diyaar ma u tahay inaad qaadato oo wax weeyaan hawsha aan ku diray aad qabato wuxuu yiraahdaa offerka diyaar baan u ahay inaan qaato shaqadaan aan qabto deeta saacad yar miiska hoosteeda Andrew Carnegie uu ku dhajistay buu soo saaray kor buu taagay wuxuu ku yiri su'aasha markii aan sidaa ku weydiiyay bottom baan saacada taabtay saacada waxaan ku joojiyay oo ku programiyay 1 daqiiqo 59 seconds baan ku programiyay sababta aan doorashada adiga kugu soo celiyay inaad go'aanka qaadatana aan adiga ku siiyo xulashadaasina waxay ahayd bal inaan ogaado heerka inaad isbedel diyaar u tahay uu jiro ama uu gaarsiisay waxaan kugu hambaleynayaa qodobka waad ka soo gudubtay tijaabadii ugu horeysay baan ahayd diyaarna waxaan u ahay shaqada aan hadda ku dirayo inaan wax kasta ka caawinaya oo tala ah oo aan maal ahayn aan ku siiyo marka wuxuu ku yiri waxaan rabaa hibadaada waxaan ka dhaxarkaya inaad tahay qof soo saari kara waaya aragnimada oo soo ururin kara oo buug iyo waxa weeyaan dhiganeys kugu keeni kara waaya aragnimada iyo guulihii ay dadku gaadheen maadaama oo aanay jirin dad iyo inta badan mawaadiicda noocaas ah wax ka qoraana waxaan aad iyo aad u rabaa oo aan doonayaa kaana dhaxarkaya inaad noqon karayso qofkii ugu habboonaa ee samayn kari lahaa dhigane ay ku xusan yihiin xeerasha nolosha ay lagu guuleysto iyo waxyaabaha lagu guul dareysto waxaana diyaar u ahay buu ku leeyahay ka caawiyo qof kasta oo nolosha guuleystay inaan kula kulansiiyo si aad markaa xeerasha dhiganaad ugu rogi karto maalinka wixii ka dambeeyay buugga wuxuu qorayay muddo 25 sano 25 years ba buugga la qorayay it's not easy 25 sano da'diisu markaa imise ahayd markii buugga bilaabay waxaan ku yiri 26 years age 25 sano ku dar وامسا 51 years age marka buugani waa nuxurka iyo miida iyo xikmadaha qoraal isaga mooyaan wax kala aan la qabanaynin muddo 25 sano lagana qorayay 500 ee nin ee ugu saameynta iyo hantida iyo dhaqaalaha badnaa wadanka Mareykanka marka buugaagta self help books kala yiraahdo ee korinta nafta iyo horumarinta aadamaha waa the number 1 book in history taariikhda buugaagta mawaadiicda ka warrama waa buugga ugu horeeya kaalinta koowaad ku jira marka waxa uu sidaa macluumaad ay ku guuleysteen 500 oo nin oo dunida soo maray oo gaaray waxa la yiraahdo high stations in life stationska iyo darajooyinka iyo martabadaha sare ee nolosha rag intay soo taabteen deetana si raaxo leh nolosha wax weyn ugu noolaaday dadaaladii ay sameeyeen iyo waxa weeyaan jaranjarooyinkii ay soo mareen oo qoraal ah ayaa buugani waxa weeyaan uu ku qoray waxaan ragga kamida Andrew Carnegie ninkan hadda ii sheegayo Henry Ford ninka la yiraahdo ee shirkadda baabuurta Ford ka la yiraahdo soo saarta waxa kale oo kamid ah Thomas Edison ninkii ikhtiraacay maxay laambada ninkii ikhtiraacay raggaas kamid ah raggii buugga laga qoray way inta haddaba haddii aan kaga imaado inta hadda aan sheegayo buu slide khayr ka waramaya haddaba fariinta guud ee buuggan Think and Grow Rich uu diraya intaas markaynu hordhac uga nimaadno buuggan horta inaad akhridaan waa muhiim inta presentation hal ugu siinayo waxa ka nuxur iyo qiimo badan imka look at this wada highlight gareysay yahay from below ila page-ka ugu dambeeya yani waxay ku sheeg buuggan horta waxaan akhriyay 7 jeer san horeyda ku sheegay waxa weeyaan markaad akhrinayso waxa dareemaysaa waxa weeyaan inuu buuggu kugu socdo sidii falaanbaynta lagu muday waxa weeyaan sidii flash computerka markii la galiyo soo download caadi adigoo arkay ugu ma socoto
waxa dareemaysaa buuggu saa kuugu socdo marka waxaan horta aad idinku adkeenayaa buuggan inaad akhriskiisaba bilowdaan with or without hay ama ahayn raadi buugga core philosophy-ga haddaba fariinta guud ee buuggan uu diraya maxay fariinta guud ee buuggan uu diraya waxa weeyaan waa hal qodob kow qofku inuu nolosha hadaf iyo yool yeesho meel uu socdo qofku inay jirto desire baa la rabitaan waxaad rabtaa inay jiraan waxa aad rabtay inaad aaminsan tahay inuu hirgeli karo dabkay doontaa kulaashee aaminaad kaliya aad isku halayna aad u diyaar garowdo aad u qalab urursato maxay sidii aad u fulin lahayd action iyo hawlgal ula iman lahayd marka fariinta koowaad ama core philosophy-ga ama core idea-da guud ee buuggu bilow ilaa dhamaad intuu waxa weeyaan kolba dhinac kaga yimaado uu dirayaa waxa weey qofku inuu nolosha leeyahay yool iyo hadaf iyo wax uu rabo iyo meel uu u socdo meesha laftirkeeda uu aaminsan yahay waqtigay doontaha ku qaadatay inuu gaari karo Napoleon Hill 26 years age buu ku bilaabay 51 years age kadibna marka 25 sano kadibna maxaa soo baxay product iyo wax soo saarkii ugu horeeyay dadaal 25 sano qaatay kadib laakiin muxuu lahaa hadaf ah inuu qoro dad yowgi nolosha guuleystay high stationska ka gaaray digana waxa weeyaan ka sheekeynaya guulihii ay gaadheen iyo sababihii ay u gaadheen wixii u sahlay yoolkaas uu lahaa uu aaminay dabkay doontaha ku kulaashay isagoo aan haysanin garab iyo kaalmo iyo taakulo intaba inta maxaa u dheeraa inuu fulin iyo hawlgal joogto ah la iimanayo uu sameeyay haddii markaa inta laga waayo halkaaga joogaysaa waliba halkaaga joogi maysid dunida wax constant ah oo meel iska jooga ma jiraan hoos baad uga dhacaysa qodobkan islayna marka fariinta koowaad ee buuggu ku dul wareegaya waa maxay waa intaas markaa si kala hadeenu u dhigno waxa weeyaan sidee baad nolosha darajo iyo kaalin sare uga geli kartaa weey yaani inaad yool iyo hadaf iyo rabitaan yeelato rabitaanka iyo yoolka inaad aaminto inuu suuragal yahay aaminaad kaliya aad isku halayna aad u hawl gasho oo aad fulin la timaadaay macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad u dagaalamayso oo u socoto doonaysa maxay highest stations in life darajooyinka sare ee nolosha adiguna inaad saamigaaga iyo kaalintaadii aad ka hesho marka waa falsafada koowaad ee buuggan uu diray buuggan hadaba waxa ku jira 13 principle ama xeer ama qaanuun ama law oo haddii aad hawl geliso oo aad dhaqan geliso oo aad ku shaqayso sabab u noqon kara maxay inaad nolosha guulaysato oo qof tirsan oo macna leh aad noqoto qof tirsan oo macna leh inaad noqoto sidoo kale waxaan adiga ku dhaafayaa waxa buugga ku jira 30 xeer oo haddii aad samayso nolosha aad dhacayso oo aad waxa weeyaan guul dareysanayso qeyrkaan aad ka hadhayso anu laakiin halkan waxaan kugu la wadaagayaa un maxay 13 ka xeer ee haddii aad samayso aad guulaysanayso 30 ka xeer ee haddii aad samaysana aad guul dareysanaysana aadaan ku dhaafayaa si buuggu macna kugu sameeyo akhriskiisa marka aad u guda gasho 13 xeer kadib waxaynu ka sheekayn doonaa 4 takeaways ama 4 fariimood oo waaweyn oo 13 ka xeer ku dhex jira oo aynu kala soo baxayno oo ah miida iyo ubuucda buuggu uu dirayo fariimiisa warko kooban desire principle number 1 halkan bay daba sheekadu ka bilaamaysaa haddaad halkan igala socon weydo waad iga hadhaysaa buuggan fariinta ugu horeysa ama xeerka ama principle number 1 qaanuunka ugu horeeya ee uu ku farayo hadiiba guul damac kaaga jiro hunguri hadii uu kaaga jiro nolosha inaad darajo sare ka gaadho oo aad noqoto qof qiimo leh oo macno leh oo tirsan oo booskiisa waxa weeyaan ka soo baxay oo la isku haleyn karo oo aan laga maarmin oo bedelkiisa aan la helin if you want to become a person like that principle number 1 wuxuu ku leeyahay waa inaad leedahay desire waxa la yiraahdaa starting point of all achievement guul kasta oo la gaaray name it magaca dooni adigu u bixi midabkay doontana ha lahaato meeshii la doonana guusha laga gaaro qof kasta oo guul in uu nolosha ka gaaray bilowgiiba wuxuu lahaa maxay rabitaan buu lahaa desire wuxuu doonayay wuxuu rabay marka halkan su'aasha adiga kugu soo noqonaysa waxa weeye you want to become an achiever inaad wax gaadhaad rabtaa soo maaha maxaad rabtaa buuggan fariinta ugu horeysa marka laga yimaado waxa weeyaan contentiska buuggu dirayo
inta hadaba page-kii ugu horreeyay markaysa su'aasha ugu horeysa ee uu ku weydiinayaa waxa weeyaan what do you want most maxaad rabtaa buugba su'aashaas ku bilaamaya wuxuu ku leeyahay su'aasha haddaad jawaabteeda hayso 13 xeer furintooda waxa weeyaan ilaahay uu ku fududeyn doonaa waad ku guuleysan doontaa su'aasha jawaabteeda haddii aanad hayninna de maxaa waay buug maxaa soomaad waa akhrinaysa waxaad rabtid ma garanaysid ilaa bal waxaad ka warantaa haddaad iminka adigoo bukaana aad dhakhtar u tagto hospital aad tagto oo doctorkii intaad soo hor fadhiisataad garan buuda meel ku xanuunsa ka hor dawo maad helaysaa no tala maad helaysaa no prescription iyo waxa weeyaan warqada lagu qorana hadalkeeda badda marka wax walba maxay ka bilaamayaan meesha ku bugtay ee ku balbalaysa horta inaad adigu garanaysatee haddaanad garanayn cidna kuma caawin karto waxa weeyaan hard truth runta qaraari marka waa maxay buugu dirayaa war nolosha haddaanad garanayn waxa aad rabtay meesha aad u socoto no one can help you ma jirto cid ku caawin kartaa haddaad rabtay inaan ku caawiyo haddaad rabtay inaan gacan kuu fidiyo haddaad taa kule iga doonayso ii sheeg waxaad rabto I will tell you how to get that hadeeg marka fariinta koowaad buugu dirayaa waa maxay rabitaan inaad leedahay desire inaad wax rabto waana jaranjarada koowaad ee laga koro maxay guusha iyo wax la gaaro marka farqiga u dhaxeeya desire iyo wish wax la raado buuga sidoo sheegay Napoleon Hill wuxuu ku leeyahay desire rabitaan iyo wish jamasho farqi weyn baa u dhaxeeya inaad wax jamato ni wallahi waxaan jeclaan lahaa inaan helo waxa la yiraahdaa jamasho waxaan waa rabaa oo waan jecelahay inaan helo waxa la yiraahdaa desire ee hadii kala duwan ni wallahi halka safarkan aan baxo wallahi way igu qurux badnaa safarkan waxaan rabaa inaan baxo ee farqiga u dhaxeeya marna waad rabtaa marna waa jamasho ni wallahi waxaan jeclaan lahaa inaan gabil iska yartago aan sidan oo kale barnaamijka yar jeediyo maya waxaan rabaa intaan gabil la tago aan barnaamij soo jeediyo waa rabitaan iminka barnaamijka ma lacag baad nagu siinaysaa no maya Soomaa anaga jeebkayga isticmaalana Soomaa waa rabitaan anaga naga yimi weey haddaan anagu rabitaankayga aanan la imaan lahayn waxa ma kala shaqeeyo waxa ma socdaan Soomaa marka sideedaba haddaad doonayso nolosha inaad meel macna la aad gaadho jamashada iyo xiisaha jooji rabitaan wuxuu inuu yahayna laba shardi baa laga helaa laba shardi haddii wuxuu leeyahay waa rabitaan